walaalkii waa mahadsan tahay saakii baarlamaanka waa nimid waxaan u nimid waxay ahayd inaan gudano waajibaadka shaqo oo aan u dhaaranay oo ah inaan shaqeyno ajandaha saaka wuxuu ahaa in hore loo wado dastuurka Soomaaliya oo qayb ka mid ah hore aan u soo ansixin qaybteeda kale hadda la doonay in doodeeda la furo waa nimid alxamdulillah ajandahaasi iyo baarlamaanka si qurux badan noogu furmay waxa la qaybiyay ajandihii waxa la aqriyay aayadii quraanka waxa la qaybiyay wixii ku qornaayeen hadda aniga aan kula hadlay aan wato oo dhammaan dukumeentiyada saaki shaqada loogu tala galo idil waa kuwaas way jireen team asxaabta ah oo arintaas iyada ah aragti kale ka qabay runtii waa nasiib dara in maanta iyadoo xaaladdan la joogo dooda ay tahay xildhibaanada saaxiibayaasha ah lama shaqayn karo guddoonka iyo baarlamaanka badankiisana ay qabaan dood ah aan shaqeyno waqtiga aan noo harin aan ummadda Soomaaliyeed u shaqeyno labadaas aragtiya meesha ka kala socotay rag rabay inay fasaxyo aadaan dibadda ah oo caruurahooda ay rabaan inay waqti la soo qaataan ayaa aad u daneynay in baarlamaanka uu xirmay waqtiga inta ka dhiman ay ku qaataan meelaha dalxiisyada iyo waxaas dad iswaay ahayd inta badan laga soo horjeedo laakiin dooda ay qabaan waxa kamid ah in wax ka bedelka dastuurka xilligan waqti gabagaba oo baarlamaanka mandate-kiisa la maraayo shirar wada tashi loo balansan yahay soo adinka naftirkiina xilli dambe iyo guddoonka ma wadaan wax ka bedelka walaalkii waa mahadsan tahay dastuurka ka shaqayntiisa wax sahlan maaha bilowgii hore shaqo fiican la dhacday haddana wuxuu intaa ku soo gaaro waxay ahayd si tartiib ah guddiyada shaqada ku lahay ayaa waxa waday tilaabooyin oo maalinba waxay qaadeen tilaabo si ay shaqadan ay u socoto ay tilaabooyin u qaadeen maanta ayayna ahayd maalinta ay ku habbooneed la keenay baarlamaanka waxaan aaminsanahay in laga shaqayn karo waxaan aaminsanahay aragtida naga duwan in baarlamaanka la yimaado fagaaraha laga hadlo ra'yiga la weydiiyo aniga 100% waxa hadda inta ku qoran oo saaki guddiga soo gudbiyeen markii koowaad soo akhrinaya laba maslaxada dalka ka fiirinaya maslaxada deegaankaygan ka fiirinaya after that ra'yi waxaan qabaan u gudbin doonaa baarlamaanka mikrofoonka ayaan rabaa inaan ku gudbiyo waxa aragti aan qabo laakiin suurtagal ma ahan ma hadli kartid anigoo xildhibaan kula adigana ma hadli kartid mikrofoonka ka banadaya in firin bil soo qaato wax macna sameynaysa malaha inkastoo aad wadata adiga noqolkii hadda wax ka bedelka soo jeedinta wax ka bedelka xildhibaanada kale waxay sheegeen laakiin in baarlamaankii maanta oo ka hortageen oo suurtaag sameeyeen oo wax la qabtay aysan jirin walaalow nin oo buuga nin oo firin bil taagnay oo miisna garaac horta buug soo arkaya aniga hadda kula hadla buuga inta ka keen miiska fadhiga aan fadhiyo howlwadeennada baarlamaanka uu keenay dad inay shaqo ay qabsoonteen ku cadeynaysa marka waxaad leedahay maanta intii loogu talagalay oo guddiga inuu qaybiyo shaqadii loogu talagalay ajandihii dhan waa kana intuu ku wada qornahay uu wada hirgal ajandaha maanta muxuu ahay qorshe wuxuu ay furitaanka aayadaha quraan kariimka wala akhriyo waa maqlaysi in la akhriyo way duuban tahay ansaxinta ajandaha gacantii loo taago u jeeday warbixinta guddiga dastuurka labada aqal waa tana iyadoon qoran iyo qaybinteeda wixii dhan waa haysanaa marka nimankaas iyaga si kale u maqnaa qaarkoodna way soo daaheen kal fadhiga labaad maxay isleedahay marka wax culays ma jiro shaqada dastuurku ay soconaysaa